السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتا أن جعلها ميل والبو الدنيا كجوجتان waxaan rabaa inaan wax yar ka dhaho tartan aqooneedka ka socdo gobolka Banaadir kaasoo ay qabtaan idaacadaha amba telefishinada gaarka loo leeyahay runtii waan bogaadinaynaa telefishinada gaarka loo leeyahay kan dowladda idaacadaha gaarka loo leeyahay inay mar waliba qabtaan tartan aqooneed kaasoo loo qabanayo degmooyinka ka tirsan gobolka Banaadir iyo kuwa goboladaba si ummadda Soomaaliyeed aqoontooda loo hormariyo degmo kasta degmada kale si xifaltan leh soo diyaariyaan si gaara waxaan rabaa inaan uga hadlo degmada Caleer ee gobolka Galguduud taasoo wacdara ka dhigtay tartan aqooneedkii sanadkan lagu qabanayo gobolka Banaadir degmada Caleer waxay lugtii koobaad wajahday degmada Howlwadaag waxayna kaga badisay 10 Howlwadaag 14 Caleer dad badan way rumaysan waayeen sababtuna waxa waaye san wada ogsoonahay degmada Caleer 14 sano ka badan waxaa haystay cadow kaasoo diidanay horumarkeeda xagga dhaqaale xag waxbarasho xag diin wax waliba oo magaalo amba degmo ku hormarto way ka hor istaageen marka dad badan oo asxaabnahay oo isxifaalayno oo igala soo hadlay social media waxay dhaheen waa prank hal habeen way niimartay waxaan ku dhahay Caleer taariikh ahaan waa hoygii aqoonta hoygii hogaamiyaasha ummadda Soomaaliyeed sidaa darteed next game iyo wacdarada aan dhigno nala ark lugtii dambe waxaanu lagu aadiyay degmada Kaxda ee gobolka Banaadir wacdaradii hore mid ka daran Kaxda 6 Caleer 14 sidaasna Caleer waxay ugu soo baxday wareegga labaad ayadoo hal lug u sii harsanta intaas kaliya ma ahan Caleer markii hadda dad badan oo ku dhaganay ay ka fuqeen waxaa la rajeynaa inay meesha tartankan sanadkan meel fiican gaari doonto amaba ay qaadi doonto sidaa darteed hambalyo Caleer waana shaafisayaan tartamayaasha nagu matalo degmada Caleer hambalyo والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.